بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هالكان نقرأ سعطان فتح ميديا برودكشن. برنامج كده على هذا وكالات كلا سعد جتين channel فتح ميديا برودكشن. برنامج كمان توحنا قصة قادم دونا قضبة ولا برسين تانا قضبة وكل جدين تاريخ ضوء اهتمام مساس تهلوات في الجنة ورسالة دلوقتي كن سقالي تمنك قضبة وقول ريان برنامج قصة قادم دونا حكم ده كالية حكاية دبت أمريكان كا وما أنت رشالي مقدشة يميت أهل السنة وصوص صارتي جدول دورشة جيسات أهل السنة يدولة دفتر الصومالية وميل سرق أرتي لبا دورشة وكده يدون تدوس مرين واري أو كل ما حساسية كبلاوي بلدويني محل لو هذا يكون انتي قاهرة يا سفير قدر يا تركيا يا شركة عينيس سد حرين أو فرماجو كسافسن وعنكو أغاني ورئيس جيشل سنبلوش قضا ورركا أصوم مقشين سوداء رئيس الوزراء جمهورية الفدرالية الصومالية مدن حسن علي خير أيامان شالي كل قاتي كاليها وقيها رمها دفد أمريكان كا رمها أفريقيا تيوبوت نيك قديقة دورشة قلمود كارب السنة والجماعة يا صوص عريجة قلت دورشة مدحوينها إيو مدحوين كوكين كقلمود واركي قدام بيها ayaa naga soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimada maamulka Galmudug ayaa sheegay inay meel sare gaartay xiisada ka dhex taagan dawladda Soomaaliya oo doonaysa inay Galmudug u sameeyso madaxweyne iyada wadato iyo ahlu sunna oo doonaysa inay ka qayb noqoto awoodda Galmudug madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare waxa shalay ku hoyday baladweyne ayaa kulamo ka bilaabay guddiga magaaladaas kulamaha oo xasaasi ah ayaa waxa diiradda lagu saaray sida gobolka Galmudug gaar ahaan khilaafka ka taagan wala burde ee gobolkaas ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa shalay xafiiskiisa kulan gaar ah kula qaatay safiirada dalalka Turkiga iyo Qatar maamulka shirkadda NS iyo taliyayaasha booliska iyo xogaga uu ku helnaa taliyaha booliska gobolka Banaadir halkaas ayaan ku soo afmeerayna barnaamijkeena inta barnaamijka caynkan ku midano